بسم الله. وحي جماهيرته فيرسية جماهيرته يهيل وال أنت أمضى المدنمة أمضى الصومالية دين الإسلام كا كنت عن طريق الصحابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابتنا وكم من الجوابها عدوة سومالي ديت كا هديرنا رجحسد قدر صدي وحان الشركة صحافات كانوا وقفتي كو لبان المعلومات دجال كي السعوديين أو البحيرة ركوان كبحيرة وقضب كله يا واحد يدخل بينه وشيء جيان رجحسد أسنم وأيلي فيصل فاروق بدلنا إنا بينيو بس عدك اللفتي جماهيرته maxay shuhadaha halkan dagaalka ka jirana iyana aan kelmad u diro dardaarana intaas ay u kaliftay koow waxaan ka bilaabayaa labadan maalmood inta hadana ka tirto shalay iyo maanta cadawgu waxay isku dayadoodii ugu dambeeyay oo ah inay dagaal ku qabsadaan dagaalkii ay ku wadeen waqti dheer markay madaafiic laba bilood la soo dhacayeen magaalatan isku dayo kala dambeeya ay sameeyeen odayii argixisada xukuumay waa tuu isqaawiyay maxay ahayday soo ururiyay markaan intii hore dhamaynay ciidan beeleedo madax xoogaa baa ayaamahan u biiray buu soo helay musanawi ku soo helay intii maantana iyo shalayna dabka ku shubay labada dagaalba waa lagaga guuleystay weyna ku jabeen argagixisadii Soomaali diidka ahayd SNM been buu idin sheegaya Muuse horena idinku sheegi jiray maxay ahayd oo idinku khaldi jiray hadeerna wali sii wada kamana waan towdaan inaad beentiisaas mar qura inay beentahay aad aragtaan wiilashiini waa dhamaadeen hooyo badan iyo aabba badan meeshan waa ku gooblamay mana noola hadduu idinku yiri waa noolyihiin waadna soo wadaan way dhamaanayaan kuwaas soo wadaan intuu muusanaweedi kaga soo ururiyeen shalay maanta yana tageen dagaalkaas dhinacyo badan bay iskaga dayeen cadawgu inay magaalada ka soo galaan oo ilaa 3 jahay weerar ka soo sameeyeen labada maalmoodba hadeeru joogsaday runtii dagaal buu ahaa adag oo isku dayadoodii ugu dambeeyay Ilaahay dadka rajaynayo wixii ka dambeeya hadii ay qaataan diinta islaamka oo ku soo noqdaan dariiqa mustaqiimka waa gaar oran meeyne waa ay soo dhiibaan waa nabad geliyeen waxaan oran dhaqmaynaa si goobannimo leh shariicada islaamkuna ay u ogoshahay xuquuq waxay leeyihiin wixii ka dambeeya haday taas sameeyeen waayaan waxa suuqayna ku bishaaraysa marsiideen waa taas waa warbixintii dagaalka goojaada email hagaas dhuxun waxaas halkaas ku sii jiraarsan yihiin waa go'doonsan yihiin ku abshira xaqiiqdu waa taas qodobka labeeya jabaahiirta waxaan akhriyay sawirro social media la wareegayo jabaahiirta dagaalamaysa xaraan caleeg inaynu sidaa u dhaqanno haday run yihiin anagu ma xaqeejin karno dhaawac laynayo oo ay jabaahiirtu laynayso dhaqankeena ma ahayn kii diinta islaamkana maaha kii aynu gobonimada u lahayna maaha ha samaynina arrintaas haday wax jira tahay ha samaynina waadna khaldanteen yeelkeeda sababta cadawgaasina baan saarayaa iyo Muuse oo dagaalka ku raajiyay way xanaaqeen bal riisana idin raadiyo sidaa idinka dhigo hadaan taayinta kaga gudbo SNM Maxamed Riyaad jamhadda argagixisada waan arkinay maxaabiis dagaalka maxaabiis wala kala qabsanaya idina wala qabsanaysa anana waanu haynaa anagu sida shariicada islaamku ay ogoshahay oo maxbuuska uu xuquuq intay siinaysan u siinayna walaalnimo Soomaaliyeed iyo mid darisnimo aanu siinayna wali dubkii luqadina waad ku hadlaysaan dubkiina waa leeyihiin Soomaalnimo baanu siinayna goomnimadooda waxay nafaraysan siinayna ka daaya maxaabiista aad ilhaamisanaysan waanu sharafnaa anagu mana ilhaamisano haddaad ka dayn weydaan
waxaa la yiri caana xun dhigato adnaku murdiid ya waxaa loola dhaqmayaa sida aad ula dhaqmaysaan oo xun laakiin waxaan idin sheegayaa war dagaalkan uu dhammaan doonaa jilaalku waa haray naxariis aan harin baa layidhi maxay ahayd ka daaya maxaabiista aad ilhaamaysanaysaan ama laynaysaan waa kuwiina u dhigteen ka daaya duqaadkii waa dhammaaday taasna iyaga cadow waan u dirayaa intaa bacdigeed adkaystaan leeyahay reer SSC iyo walaalahoodba guushina waa taaganahay waa dhammaadsantii taliya maanta dagaal baa dhacay u dhaxeeya ciidamada xoogga SSC iyo kuwa Somaliland maxaa khasaare ka dhashay wallahi adeer khasaaruhu runtii isaga mid way iska jaayis cadawgan aan arxanka daran oo maxay ahaydey aad moodid inuu xaqiiqdii hadday diin islaam tahay hadday midab Soomaaliyeed tahay hadday nooca dadnimo ay tahayba inuu aad uga fog yahay garaaci ay magaalada waa taas waa ololeysa wixii baa la dhacayaa iyadoo waa khasaaraha jira khasaaraha kale dhaga wasaanaya bariyahan ciidamada Soomaaliya waxay sheegayeen in dagaal qorsheysan soo qaadayaan maxaad ka leedahay arrinka hadalka ka soo yeeray waa tan jawaabteedii way soo qaadeen jawaabtoodina waa heleen adeer iyaga weerarka saaka soo qaaday iyaga soo qaaday shay saaka dagaalku furmo badan buu ka dhacay baa la sheegayaa ma noo tilmaami kartaa ha adeer maxay ahayd dhinaca galbeedka oo caruur yaryar hooyooyinka yaabiyaashood laga soo xaday lagu soo khalday bahayaamahanba lagu ururiyana dhaqdhaqaaqooda waa la soconay malaha xogaa baa idiin ururay buu odaygiis yiri dabeedna halkaas ay aroortii hore dagaal ka soo bilaabeen kadibna ilaa 2 meelood oo kale uu ka bilaabmay intiina waa lagu jibiyay ma jiraan gaadiidyada hubka xambaarsan oo la iska qabsaday ha waa jiraan maxay ahayd anana waxaan la ka qabsay koodaas badan aan ka qabsanay ama daanta galbeed ee magaalada Laascaanood waxaa haatan ka socda dagaal xoogan kadib markii maleeshiyada SNM oo ilaa xalay waday dhaqdhaqaaqyo la socday ay weerar ku soo qaaday dhinaca galbeed ee magaalada Laascaanood ciidamada soo majestiyaasha ah ee difaaca deegaamada SSC Khaatumo oo xalayba helayay xogaha sirdoon ee maleeshiyada SNM ayaa si dhow ula socday dhaqdhaqaaqyada ay wadeen SNM xabadda haatan ka socota duleedka Laascaanood ayaa ah mid ka sii fogaanaysa dhinaca magaalada taasi oo qeexaysa in maleeshiyada Somaliland ay durba la kulantay dharbaaxa xoog leh dhinaca galbeed ee magaalada waxaa ku sugan ciidamo xoog leh kuwaasi oo horaanba loo diyaariyay inay ka hortagaan dhagaraha iyo weerarada gaadmada ah ee ka imaanaya maleeshiyada doolka ah ee Somaliland wararka sugan oo aanu ka helayno furimaha dagaalka ayaa sheegaya in xabaddu haatan ay ka socoto labada daamood iyo furimo hooseedyo ay ka dagaalamayaan ciidamada deegaanka SSC Khaatumo sida wararku nagu soo gaarayaan Somaliland isla haatan waxa ku dhacay khasaare xoog leh maadaama ay ka soo weerar tageen aaga dhuya xuusho oo badideed aan lahayn dhul difaac noqon kara halkaas oo ay xabaddu qaadqaadatay maleeshiyada SNM 64 saac ee la soo dhaafay maamulka Muuse Bixi ayaa waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo uu ka waday deegaamada ay degan yihiin kuwa u mana sheegtay Somaliland ciidamo beeladiye iyo caruur aan da'weynayn oo la soo khalday ayuu Muuse Bixi ku soo daabulayay furimaha dagaalka kadib markii ay dagaalka ku fashilmeen ciidamadii militariga uu ahaa maamulkaasi la magac baxay Somaliland ee dhisnaa tan iyo sanadkii 1991 kuwaasi oo ciidanka difaaca deegaanku ay jiireen iyadoo wararku sheegayaan in Somaliland ay dagaalkan ku weyday saraakiishii ugu badnaa abid ee dagaalka ka dhinta si kastaba ha noqotee Somaliland ayaa damaceedu yahay inay Laascaanood dib ugu laabato taasi oo ay 4 January sanadkan lagaga saaray gudaha magaalada Laascaanood 15 daqiiqo damac kasta iyo isku day kasta oo Somaliland la timi waxa biyo qabo ku shubay ciidamada iyo guutooyinka deegaanka SSC Khaatumo haatan magaalada Laascaanood waxaa si toos ah uga socota xabadda oo ciidamada xaquudirirka SSC Khaatumo ay iska caabin xoog leh kala hortageen maleeshiyada ka amar qaadata Muuse Bixi Cabdi wararkeena dambe ayaa daawadayaal si intan ka sii faahfaahsan aad ula socon doontaan haddii eebaha awood dalay qadaro